dimuqraadiyadu u burburin hore loogu gudbo xalkeedii oo dhan warkaa guddiga ayuu ku koobayay amanaysan xalito inuu hadlay wuxuu yidhi 66 horaa loo noqonayaa baarlamaankana waxaan ka codsanayaa inay soo saaraan lifaaqii anna guddi khilaafaad baa ku dhawaaqayna lifaaq aynu inagu soo saari karno oo aynu gacanta ku hayna ma aysan jirto haddaynu soo saari karno mar hore baynu hawsha qamayn lahayn oo halkaaba may soo gaadheen guddigani waxay arrintaa ay u qaateen iyo dadkii galayba mar haddii aan lifaaqna la soo saari karin dimuqraadiyaddiina aan loo sii socon karin in xal kale oo bal wax lagu xalilo la keeno go'aankan sidaas u ka yimi mudanayaal sharafta badan waxaan ka codsanayaa in go'aankaas aynu meel marino si 8 January 2024 doorasho dalka aynu u geyno iyagoo kan mudanayaal yaa ogol qodobada aan hortiina ka akhriyay in aynu meel marin codayntii go'aamada guddiga beesha dhulbaante ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee Puntland oo ay weheliyaan kalsoonina ka haystaan isimadii go'aamadii hore soo saaray culimaadudiinta ganacsatada bulshada rayidka iyo qaybaheeda kala duwan waxaa ogol ugu codeeyey 41 diinba waa eber aamus waa 2 mudane kooramka golaa fadhiyana 43 cod buu ahaa sidaa daraaddeed waxaan qirayaa go'aankii ay soo saareen guddiga khilaafaadka beesha dhulbaante ee khilaafka siyaasadeed iyo isimadii hore go'aamada u soo saaray oo kula jira oo taageeray sidaas ayuu ansax ku yahay